kusoo dhawaada qaybtii tobnaad ee barnaamijka bayaanka danab. barnaamijka bayaanka danab waxaan kusoo qaadanaa warar iyo sheekooyin ku saabsan ciidanka kumaandooska danab. waxaad jimco kasta 10 barqanimo aad ka daawan kartaa bogga aan ku leenahay YouTube-ka ee bayaanka danab ama Facebook-ga danab media. waxaad sidoo kale ka dhageysan kartaa idaacadaha kale ah Radio Muqdisho, Radio Kismaayo, Radio Baydhabo, Radio Galgaduud iyo Radio Beledweyne isla maalinimada jimcaha 3:00 galabnimo. waxyaabahan barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah wararkii toddobaadka ee ciidanka kumaandooska danab waxaana ka mid ah ciidanka kumaandooska danab oo al-shabaab ka saaray tuulooyin ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. danab iyo ciidamada daraawiishta galmudug oo isku fidinaya deegaano cusub howlgalka ka socda koonfurta gobolka mudug. saraakiil ka socday ururka toddobaad ee ciidanka kumaandooska danab oo deeq raashin gaarsiiyay qoysas danyar ah deegaano hoostaga degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaa kaloo barnaamijka ku soo qaadan doonaa howlaha iyo adeegyada ciidanka danab ay ka qabtaan deegaanada laga xoreeyay maleeshiyaadka al-shabaab. waxaa kaloo ku eegaynaa kaalinta iyo muhiimadda ciidanka ay u leeyihiin dhalinyarada ka qalin jabisa jaamacadaha ee ku beeraya ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab. barnaamijka waxaa idila socodsiinaya Anooshilaawa Cabdilaahi Cabdiraxmaan. isku soo noqod wanaagsan mar kale. ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maleeshiyaadka al-shabaab ka saaray deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose kadib howlgal ay sameeyeen toddobaadkan. ururka shanaad guutada 16aad ee ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka qabsaday maleeshiyaadka al-shabaab tuulooyinka Buule Xaaji, Yaadabeel, Bura, Fareydhuubow iyo Xawaalo ee gobolka Jubbada Hoose. ciidanka kumaandooska danab ayaa si nabad ah kula wareegay tuulooyinkan. saraakiisha ciidanka danab ee howlgalka hogaaminaysay kuna sugan gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegay inay sii socon doonaan howlgallada xoreynta ee gobolka. bishii hore ayay ahayd markii ciidanka danab ee sida gaarka u tababaran ay ka qabsadeen maleeshiyaadka al-shabaab dhowr deegaan oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay ku jiraan ciidanka kumaandooska danab iyo kuwa daraawiishta maamul goboleedka galmudug ayaa sii waday inay guule ka gaaraan howlgalka ka socda koonfurta gobolka mudug iyadoo deegaano horle ay ka qabsadeen al-shabaab siina wada inay aag cusub isku fidiyaan. deegaanadii u dambeeyay ee danab iyo ciidanka kale wada socda ay la wareegeen waxaa ka mid ah Ceel Cabdi, Dabagalo, Shabeelow iyo qaar kale oo hoostaga degmada Xaradheere ee gobolka mudug. saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in howlgalka uu sii socon doono ilaa al-shabaab laga saaro deegaanada ay gobolka kaga sugan yihiin. war-saxaafadeed toddobaadkan ka soo baxay ciidanka danab iyo ciidamada kale ee howlgalka ku wada jira ayaa lagu sheegay in tan iyo markii uu howlgalku bilowday lagu dilay ilaa 200 oo ka tirsanaa al-shabaab isla markaana lagu burburiyay 16 saldhig. sidoo kale waxaa howlgalka lagu xoreeyay 4 degmo iyo 8 tuulo. saraakiil ka socotay ururka toddobaad ee guutada 16aad ee ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa deeq raashin gaarsiiyay qoysas danyar ah oo ku nool tuulada Daa'if oo hoos tagta magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. deeqdan oo ka koobneyd bariis, bur, sonkor iyo saliid iyo timir ayaa ahayd mid ka timid ciidanka kumaandooska danab dhexdooda oo u gartay inay caawiyaan dadka danyarta ah. qoys walba oo ka mid ah dadka helay deeqda ayaa la siiyey raashin uu intii muddo ah ku sii noolaan karo. danab ayaa badanaa caawimaad noocan oo kala gaarsiisa dadka deegaanada ay ciidanku saldhigyada ku leeyihiin iyadoo tani ay ka mid tahay siyaasadda ciidanka ee ku wajahan daboolidda baahiyaha bulshada. halkaasi aynu kaga gudubno wararkii toddobaadka ee ciidanka kumaandooska danab. waajibaadka sugidda amniga iyo difaaca dalka waxaa u dheer ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed inay si degdeg ah uga jawaabaan baahiyaha ay qabaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada dhowaan laga xoreeyay maleeshiyaadka al-shabaab. warbixintan soo socota ayaa iftiiminaysa siyaasadda ciidanka danab ee ku wajahan arrintan. kumaandooska danab waxay kala shaqeeyaan bulshooyinka ku nool deegaanada la xoreeyay sida ay dib ugu soo kaban lahaayeen dhinaca amniga, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. deegaanada la xoreeyay waxaa sanado badan daashaday ka hor xoreynta colaado iyo horumar la'aan dib u dhigay bulshada. hase yeeshee danab oo ka duuleysa la tacaalidda dhibaatooyinka muddada dheer ka jiray deegaanadan ayaa dadka deegaanka ka taageeraysa bixinta adeegyo bulsho, xaqiijinta amniga iyo ballaarinta nidaamka dawliga ah.
dadka jooga deegaanada la xoreeyay ee qaabo badan jirto oo aan wala shaqeyno waxa kamid ah in aan ka caawino haday jiraan baahiyo degdeg ah oo markaas aan xalin karno haday yihiin in biyo la'aan ay ka jirto meeshii daawo la'aan inay ka jirto in raashin gargaar oo degdeg ah ay u baahan yihiin dadkii meesha joogay sababtan waxaas u sameeynana waxay tahay sidaan ognahay wadanka waxa ka jira dagaal lagula jiro ragaan argagixisada ah marka ciidanka shaqadoodana waa la dagaalanka qoladaas laakiin ma dhihi karno waxaan sugaynaa ilaa dagaalka ka dhameeyno saan dadkeena shacabku caawino sidaas darteed labada shaqo waa isku wadnaa gacantan anagoo ka caawinayna shacabkii gacantan inaan ku xoreeyno cadawgii la dagaalano xafiiska danab ee arrimaha bulshada tan iyo markii la dhisay sanadkii 2020 waxa uu ku guuleystay in deegaanada la xiyay laga sameeyo howlo bini'aadanimo sida bixinta raashin deeq ah iyo dhismaha ceelbiyoodyo laga dhisay deegaanada la xoreeyay ee shabeellada hoose dhismaha ceelashan waxa ka faa'iideystay boqolaal shacab ah oo ku dhib qabay helitaanka biyo ka hor furitaankii ceelashan tani waxay indhaha u furtay shacabka oo tusisay in kumaandooska danab aysan kaliya ku koobnayn furumaha dagaalka hase yeeshee ay sidoo kale u taagan yihiin caawinta shacabkooda tan iyo markii la aasaasay xafiiska arrimaha bulshada danab shaqooyinka badan ay qaban aad u fara badan yihiin waxa kamid ah inaan tuulo u dhow xiradeena Baladogle oo dadkii deganaa bulshada uga qaxeen biyo la'aan maadaama ceelkii ka jabay inaan ceelka u sameeyno si shacabkii ugu soo noqdaan deegaanadooda biyana u helaan waxa kamid ah inaan deeq raashin gaarsiino dadka ku nool deegaanada la xoreeyay iyo magaalada Muqdisho gaar ahaanba hadda tusaalo kale waxaan deeq raashin gaarsiinay xarun la yiraahdo Maam Ugaasi Foundation oo lagu xanaaneeyo caruurta darbijiifka ah ee laga soo aruuriyo magaalada wadooyinka magaalada Muqdisho asli maxamuud xalane iyo kooxda la shaqeysa waxay isku dayayaan in si dhab ah looga jawaabo baahida bulshada taasoo horseeda isku soo dhawaanshiyo ka dhaxaysa danab iyo shacabka waxa meesha ka baxay fahamkii qaldanaa ee ay bulshadu ka haysteen ciidanka badana bulshada ciidanka ay xogaa ka cabsaan taasna waa waxa ka shaqeynayay in bulshadii iyo shacabkii ciidankooda inay aaminaan ku kalsoonaadaan ogaadaan dadkan tuutaha xiran waa wiilashiina iyo gabdhihiina dad meel kale laga soo aruuriyay ma ahan shala shacab ay ahaayeen maanta ciidan waay waxay ciidanka u noqdeen ay dabka u sidaan ama holacaas ugu jiraan waa xoreyntiina iyo idinkiina idin dagaalamaan cadawgiina ma aha la shaqeynta bulsho ku hoos nooleyd muddo dheer cabsi iyo rabshado wax badan ayaa laga baran karaa si gaar ah shacabka ku nool deegaanada la xoreeyay waxaan ka bartay dadka ku nool deegaanada la xoreeyay runtii waxyaabo badan oo ay ka mid tahay in dadka Soomaaliyeed ay dawladnimada u diyaarsan yihiin ay yihiin dad jecel dawladnimada u nugul baahiyo badan u qaba runtii dhibaatooyin fara badan soo arkay cadawgana oo dhib badan ku haayo marka anagoo soo dhaweyn badan kala kulanna badankood markay ciidamada arkaan ku farxaan marka waxa dhigi karaa muhiimadda ugu weyn aan ka bartay waxay tahay dadka inay dawladda jecel yihiin iyo ciidankooda saameynta ka gacansiinta dib u soo kabashada bulshooyinka ku dhaqan deegaanada la xoreeyay waa mid muuqata iyadoo la arkayo in ay noloshii soo laabatay oo shacabku ay maanta xor yihiin haystana amni waxbarasho iyo caafimaad xaqiijinta yoolkan waa mid ka mid ah riyooyinkii asli oo rajeynayso in ay kordhiso hawsha ay qarankeeda u hayso maanta sargaal ama askari ma jiro dana gooni u dagaalamaya ama wax gooniyo ka maqan ama shakhsi ama koox ama qabiil u dagaalamaya waxa u dagaalamayna waa bulshada Soomaaliyeed waa in cadawga aan ka xoreyno inaan one day aragno wadankeena nabad ah marka fariinta bulshada u diray waxay tahay askari walba ka hor imaado ogow inuu yahay mid adiga ku difaacaya ee adiga ku dagaalamaya cadawgaaga ma ahan tiro badan oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka qalin jabinaya jaamacadaha dalka ayaa sanad kasta ku biira ciidanka kumaandooska danab dhalinyaradan ayaa fursad ka hela ciidanka waxayna doonayaan inay isbedel abuuraan iyagoo ka faa'iideysanaya aqoontooda dalkeena Soomaaliya waxa uu soo baxay jiil cusub oo hamuun u qabo dawladnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed waa aqoon-yahano uu dalku u baahan yahay samata bixintiisa kumanaan jiilkan dhalinyarada u badan ayaa sanad kasta ka qalin jabiya jaamacadaha gudaha dalka qaar badan oo ka mid ah dhalinyarada waxa ay leeyihiin riyo taasi oo ah in ay mar un ka mira dhaliyaan ku shaqaynta xirfadaha ay weligoodba jeclaayeen tiro badan oo qalinjabiyaashan ka mid ah waxa ay doortaan in ay ku biiraan danab waxay u tahay fursad ay ku heli karaan shaqooyin iyo in ay aqoontooda iyo xirfadda ay barteen ay kaga faa'iideeyaan dib u dhiska iyo difaaca dalkooda danab waxaan ku soo biiray 2020kii
waxaan ugu soo biiray markaan arkay maadaama sida uu ugu baahan yahay dalkayga iyo aqoontaydii inaan ku soo kordhiyo waxaan garaadkayga ku soo kordhi karo. ciidanku waxa ka tirsan mechanic baa ka tirsan, electrician baa ka tirsan, doctor baa ka tirsan, engineer ka tirsan, nooc walba. marka annaguna laguma aqoon horay ma garan karo dawladeenii hore, laakiin waayadan dambe intii aan ugu garaadka soo yeeshay ma arki jirin. laakiin hadda yartan danab waxay ka caawinaysaa kasbashada bulsho fara badan iyo ciidanka oo noqdo kuwa la isku haleyn karo meel walba. sababta ugu weyn ee keentay in dhalinyaradan ay qortaan ciidanka danab ayaa ah horumarka amniga ee dalka laga sameeyay oo qof kasta oo dhalinyaro ah uu ogolaaday in uu doorto xirfadda uu doono. danab waxaan ku soo biiray bishii 3aad ee 2014 waxaan ugu soo biiray inaan difaaco dalkayga iyo dadkayga iyo diintayda. danab intaan ku soo biirin wax xirfad aan lahayn ma jirin, kaliya waxaan ahay qof wax barta. dhalinyarada waxa ay ka mid yihiin kuwa jaamacadaha Soomaaliya dhameeyay ee ku biiray danab waxa ay aaminsan yihiin in ay sameynayaan isbedel oo ay tusayaan kuwa ay isku da'da yihiin in dalka uu iyaga sugayo. ciidanimadu ma ahan oo kaliya in maaragtay iyadu la dagaalamo oo kaliya. ciidanku waa kan isagu maaragtay u xil saaran badbaadinta bulshada iyo shacabka mar walbaba. ha noqoto aqoontiisa gaarka ah, xirfadiisa ama xooggiisa iyo dhiiggiisa oo uu bixiyo intuba. ciidanku waxa uu awood u leeyahay xitaa inuu wax ka bedelo heerka aadka u hooseeya ee bulshada maanta ku jirto, sida tuulooyinka qaar, gobollada qaar, in bulshadu ay wax bari karaan xitaa ciidanku. wax weyn ayaa ku soo kordhi kara maadaama aan ahay muwaadin wax bartay oo dalkiisa jooga oo daacadna u ah oo inuu u shaqeeyo u taagan. dhalinyarada jaamacadaha ka baxda ee ka tirsan kumaandoosta danab waxa ay ka shaqeeyaan dhammaan waxyaabaha kala duwan ee ciidanka. saraakiisha danab ayaa soo dhaweeya oo u arka fursad in kartida iyo aqoonta da'yarta laga faa'iideysto. fursadaha qalinjibiyaasha ay ka helaan ciidanka danab waa ay sii kordhayaan. waxaa xaqiiqo ah in ay muuqato isbeddelka iyo saameynta ciidanka ay ku leeyihiin kaalinta dhalinyarada aqoon-yahanka ah waa mid anfacaysa dalka iyo dadkaba. waxaan intaa ku soo afmeeraynaa qaybtii 10aad ee barnaamijka bayaanka danab. ha muuganaan daawada inaad rukumato bogga aan ku leenahay YouTube-ka ee bayaanka danab, ku dhufo calaamadda gambaleelka si aad ula socoto barnaamijyada bayaanka danab. waxaad wararka iyo macluumaadka ku saabsan kumaandooska danab ka heli kartaa bogga Facebook ee Danab Media. sidoo kale ka dhageyso barnaamijka idaacadaha Radio Muqdisho, Radio Kismaayo, Radio Galgaduud, Radio Baydhabo, Radio Beledweyne. waxaan rabnaa inaan maqalno fikirkaaga. noogu reeb ra'yigaaga qaybta hoose ee faallada adigoo ka soo jawaabaya su'aasha toddobaadkan oo ah maxay tahay sifooyinka ama dabeecadaha la rabo inuu yeesho askari ka tirsan danab. waxaan naga xasuusina inaanad seegin barnaamijka toddobaadka dambe xilligan oo kale. intaan mar kale kulmi doono dhammaantay isku duban waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.